Abba Qube iyo Sheikh Bakar Safaalo ayaan qabrigoodii helay. dambina ma ahan in aan soo helay qabrigii Sheikh Bakar iyo Abba Qube. Soomaaliduna haddaan iri qabrigii Sheikh Bakar iyo Abba Qube aan ka helay Hargeysa, ma ahan in ay duulaan igu soo qaadaan. ninkan waa shakhsiga ka soo jeeda qowmiyadda Oromada ee dhawaan booqday magaalada Hargeysa. waxa uu cadeeyay in uu joogo dhulkii awoowayaasha, isagoo isku sawiray taalada Hargeysa ee diyaaradda ciidankii Soomaaliya ay saaran tahay. ninkan ayaa muran badan dhaliyay iyadoo dhalinyaradii magaalooyinka Hargeysa, Burco iyo Berbera ay duulaankii ugu cusla ku qaadeen. waxaana ay sheegeen dhalinyaradu in la joogo xilligii Oromada ku sugan deegaanada maamulkaasi laga sifayn lahaa deegaanka. barnaamijkan ayaan idinkula wadaagi doonaa, waxaan halkan idinku cadeyn doonaa in shakhsigan uusan ahayn kaliya nin dhalinyaro ah oo Facebooker ama YouTuber ah, uu yahay shakhsi ka tirsan nidaam ay qowmiyadda Oromadu dejiyeen oo lagu oromiyeynayo Soomaalida ku sugan deegaanka Soomaalida iyo Soomaalida markaasi Jamhuuriyadda Soomaaliya ku sugan. nidaamkaas oo la alifay oo ay alifeen qurba joog Oromo ah, diaspora fara badan, iyagoo markaasi sheegay in la ballaariyo oo dhul ballaarin la sameeyo, sida oo kalena ay Oromiya bilowdo kacdoon la mid ah kii qarnigii 17aad ama 16aad ay ku qabsadeen guud ahaanba ay ku soo gaareen bartamaha Ethiopia, kaas oo loo yaqaano expansion Oromia ama Oromia immigration. soo dhawaada dhamaantiin. ninkan waxa loo yaqaanay Mumax, waa YouTuber sidoo kalena waa Facebooker. dood fara badan ayuu dhaliyay. dhawaan buu booqday magaalada Hargeysa, taaladii buu isku sawiray, wuxuuna ku qoray dhulkii awoowayaashay ayaan tagay. Hargeysana waxaa ku nool dad badan oo Oromo ah. waa in ay markaasi lagu soo laabto dhulkii awoowayaashay. dib ayaa dhalinyaro fara badan oo reer Burci reer Hargeysa ah ka turjumeen qoraalka af Oromo ku qoray, waxaana loogu daatay Facebook iyadoo duulaan culus lagu qaaday. la sheegayna in la joogo xilligii la baraarugi lahaa oo laga qaadi lahaa markaas Oromada ku sugan deegaanada Soomaalida, gaar ahaan Somaliland, laga sifayn lahaa. haddaba wuxuu markaas ugu jawaabay Soomaalidii haddaan soo helay qabrigii Abba Qube iyo Sheikh Bakar, waxba ma dhibina buuq iyo qaylada iga daaya. haddaba maxaan ka baran karnaa? waxaan ka baran karnaa in si xawli ah ay ku socdaan qorshayaal la rabo in la hirgeliyo sanadooyinka soo socda. qorshayaal hadda aan suurtagal ahayn oo maskaxdeena iyo caqligeena aan suurtagal ahayn, balse la yaab iyo anfiriir ku noqon doonto 2030 2040 ilaa 2050. haddaba qorshayaashaasna waa qorshayaal laga shaqeeyay, khuburo ay u fariisatay, waxaana xilligan qatarta ugu culus wajahaya deegaanada maamulka Puntland uu ka taliyo iyo deegaanada maamulka Somaliland uu ka taliyo, iyadoo halkaasi ay soo gaareen kumanaan ka soo jeeda deegaanka Oromada. haddaba si guud qowmiyadaha Etoobiyaanku waxa ay ka siman yihiin cadaawadda ay u qabaan Soomaalida, balse qowmiyadda Oromadu waxay ka baqaysaa qowmiyadaha kale, waxayse tunjilecsataan Soomaalida. waana waxa dardar gelinaya in Oromo badan ay ku soo dhiiradaan in intay deegaanadeena imaadaan isku sawiraan ay qaab noocaas u hadlaan. waxaana sahlaya oo u sahlaya maamulada meeshaas ka taliya oo markaasi siyaasadaha gurracan ee Soomaaliya dartood u hoosgalay cadowga. tusaale Muuse Biixi waxa hortiisa laga qaaday Garowe kuwa xintama waxa iga xiga Amxaar xurmiye sharaf ula nool maliye cadow xamar ka daran. halka madaxweyne Dani waa madaxweynaha Puntland dhawaan howlgallada ay sameeyeen booliiska Puntland uu ku amray inay joojiyaan kadib markii looga yeeray safaaradda Ethiopia ama qunsulka Ethiopia ay ku leedahay magaalada Garowe, isagoo dhaqaale looga ballan qaaday shirkadda Ethiopian Airlines. waxaan halkaasi jooga shakhsi qoyska Dani ah oo markaasi qaabilsan wakiilna ka ah diyaaradda Ethiopian Airlines ee Puntland timaada, wuxuuna bishii qaata lacag
kumanaan dollar ah iyadoo guud ahaanba la joojiyey raafkii oramada ee lagu samayn lahaa Puntland haddaba waxaa loo baahan yahay dhalinyarada magaalooyinkaas Burco Hargeysa Berbera Garowe iyo Boosaaso ku sugan inay fadhiga ka kacaan oo siyaasiyiinta danaha khatarta ah ee cadawga guracan wata inaan dhag jaraq loo siinay la difaacdo qowmiyadda Soomaaliyeed iyo isirkan Soomaaliga ah Soomaalidu si kasoo siyaasad isugu hayso waa in waxyaabaha masiiriga ah ee khatarta inagu noqonaya dhamaanteen aynaan u dulqaadan waxaan idin xaqiijinayaa in oramadu qurba joogtooda iyo diyaasbaradooda ay cadeeyeen inaan Soomaalida dagaal la gelin oo ay nooga adkaanayaan say qabaan iyagu waxay leeyihiin Soomaalida hadaan dagaal la galno way naga adkaanayaan waa in Soomaalida intii dagaal la gali lahaa tira badni lagu hafiyo haddaba waan ka digaynaa qatartaas waa in si degdeg ah loo bilaabo kacdoon ballaaran oo ka dhan ah qolyahaas malihin hal dilo waa in baabuur inta la kireeyo deegaanadoodii lagu celiyo aad baan idin salaamay